bishii Ramadaan la soo dhaafay maalintii 7 bisha Abriil 19 waxaa dhacday qof familka ahaa oo yani famil camal noo ahaa oo nala deganaa guri nala deganaa balse naga guuray inuu noo soo afur doonto oo noo soo afuro balse nasiib xumo waxaa dhacday markii dadka gurigii la afuray iska baxeen waxaa dhacday Somali community joogtay waxa waa dad iga soo horjeestay oo qabiil iga danaaniyay oo mar walba yani jecel xaqeeyay inay dugsiyaan oo ilaa yaal السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك وحرم برتي ذا يوتيوب كمال والبقى الدنيا كجوكتان هدي مال إدينتها مالي وناكسن هدي هبين إدينتها هبين وناكسن إنتها كدب موقال وحان داودي كبار ير وكنول دالك ماليشيا مقع عيدين اللي يراهدو أيانيتا يوتيوبر أي سوق لدي برتي ذا يوتيوب كا موقال كاس وآد أنيقا أرقاق حكلي كبار داس يرتا واللي حيتبن جرش waxaa dhacday in ninka weyn ayada oo damcay in uu kufsado hase ahaatee markii aan muuqaalka daawaday aniga aad iyo aad ayaan uga xumaaday waxaa dhacday in aniga aan adkeysan waayay oo aan u dulqaadan waayay dulmigaas iyo dardaradaas iyo xadgudubkaas gabadhaas joogta qurbaha lagula kacayo waxaan wacay dad jooga Malaysia waxaana raadiyay xiriirkeeda waa ay ii suurta gashay in aan helo xiriirkeeda waxaa macquul adiga hadda idaawanaya in aad aragtay tacadiga iyo dulmiga iyo idabdarada gabadhaas lagula kacay hadda qadka ay igu jirtaa waxaan doonayaa in aan wareysto hello Ayanita hello Ayub abayo marka koowaad ku soo dhawow caafimaadkaada ka waran ما شاء الله ودبهي adiga asxaabta waan salaamaya ma sha Allah wa fiicana alxamdulillah boqolkiiba boqol marka koowaad waxaan kaaga tacsiyeenayaa tacadiga iyo dambiga iyo qaladka laga galay waxaan ku leeyahay aad iyo aad ayaan uga xumahay sidoo kale maadaama aan ahay nin rag ah qofka qaladkaas ka galan uu yahay nin rag ah raggii ayuu ceebeeyay hase ahaatee rag isku mid maahan marka waxaan ku leeyahay waa ka xunnahay aniga iyo inta damiirka leh ee dumarka Soomaaliyeed u danqanaya ما سنتاي دمانتين وين كقوا marka horena waa sheegay ragga Soomaaliyeed waxa ku jiro adigoo kale waxa ku jiro rag wanaagsan inay dhamaantood wada xumeen waan ka qabaa waa maasanta raadigelintaada waa tahay Ayanita manala wadaagi kartaa sida ay wax u dhaceen bilow ilaa ay dhamaad aad iyo aad waan kula wadaagi karaa bishii Ramadaan la soo dhaafay maalintii 7 bisha Abriil 19 waxaa dhacday qof familka ahaa oo yani famil camal noo ahaa oo nala deganaa guri nala deganaa balse naga guuray inuu noo soo afur doonto oo noo soo afuro balse nasiib xumo waxaa dhacday markii dadka gurigii la afuray iska baxeen waxaa dhacday in uu qofkaas damco nafsadeeda damco sharafkeega damco inuu yani isku dayo inuu wax walba oo xumaan igu sameeyo laakiin alxamdulillah waxa waay mar waliba wax qoran oo baa dhaco in Ilaahay iga badbaadiyay oo midi ila yimaaday anigoo wali aanan afurin balse iska jabiyay salaadii maghrib markaa soo dukaday kadib oo midi dhuunta iga saaray laakiin aan iska qabtay sidaas darteedna oo dhaawac aad iyo aad halis waa i soo gaaray xagee dhaawac ka soo gaaray dhaawac wuxuu iga soo gaaray gacanta oo aan midida ku qabtay ilaa iyo muddo 30 ilaa 20 daqiiqana aan dagaalamayay oo aan guriga meel walba ka tirsan aan galay oo aan isku xiray balse iga daba hari waayay si walba balse nasiib wanaag ugu dambeyn qof guriga ka tirsan oo albaabka soo furay oo imaaday sidaas darteedna aan uga badbaaday markii arintu ay dhaceysay oo aad midida gacanta ku qabanaysay oo aad guriga dhexdiisa ku dagaalamaysay labadiina kaliya miyaad ahaydeen labadeena kaliya ayeen dadka markii afureen bixeen labadeena bis ayeen tiina joogtay tiina isla markii baxday wax bay dooneen markaasuu damcay inuu ani
sharafkayga dhaawaco. waa tahay magaciisa oo saddexan ma nala wadaagi kartaa? magaciisa waxaa la Cabdullaahi Xuseen Axmed. Cabdullaahi Xuseen Axmed dalka Malaysia kula joogaa? dalka Malaysia joogaa ha. okay maadaama aad tahay gabar yar da'daada meeqa waa? 16. okay wax family ah oo ku jooga Malaysia ma jiraan oo arintan ka dhigay? Malaysia wax family oo jooga ma lahayn, kaliya joogay kaliya waxaa jirta dad oo asxaab ah oo garab isiiyay oo ka mid tahay walaashay Tina Frey iyo Xuseen Bebe Nasteexo iyo Muniir. waa gartay dadkaas garabka ku siiyay markii laga soo tago ma jiraan dad u istaagay ninkaas inay cadaaladda hor keenaan maadaama uu yahay dambiile damcay gabar 16 jira maxkamad iyo sharci iyo in la tiigsado ma la isku dayay? ayagoo horta sidaad ogtahay Soomaalideena waxa waaye badanaa markii gabar dhibaato loo geysto ama gabar dhibaato ay ku dhacdo badanaa waxay isku dayaan inay dambiga gabadhi ay duugaan oo wiilka ay garab siiyaan. marka afartaas qof laga soo tago Malaysia inta kale ee Soomaali community joogtay waxa waaye waa dad iga soo horjeestay oo qabiil iga danaaniyay oo mar walba yani jecel xaqiiqi inay dugsiyaan oo ilaa yaalaan qarinaayo oo aanan banaanka xataa u bixi karin oo aanan cadaalad helin oo aanan haysanin yani nafis aanan haysanin gurigii dhibaatadii u soo gaartana aanan ku noolaa karin oo marka meel walba dhibaatay u gaartay ama dhiigeygii ku baxay aan arko aan ka damqanayo xanuunsanayo banaankana aan ku nafis karin oo sheekadii qabiil ay u bedeleen oo ay dhaheen yani gabartan yarta waxa waaye kaligeed waxba ma qaadayso laakiin mar walba waxa waaye ilaah baa ila jiro. waa tahay youtubero badan ayaa jooga dalka Malaysia ma jiraan markii laga reebo Muniir Aqaa iyo Tina oo adigu garab istaagay dad kale oo youtubero ah ama dumar ah ama rag ah oo adiga kula soo xiriiray ama youtube-kooda kaga hadlay tacadiga lagula kacay adiga? walaahi ma jirto marka intaas oo hadda aad soo sheegtay iyo saxaaf oo lagu daray marka laga reebo inta kale waxa waaye waxay noqdeen dad iska aamusay oo aanan ka hadlin arintii xataa hadee marka hore ka aamuseen maanan ka filinaynin youtuberada Malaysia jooga waxaan ka filinayay inay garab weyn isii doonaan inay istaagi doonaan hadee dadkii kale iga soo horjeesteen inay xataa maadaama dad isku shaqanahay ay yihiin hadee Soomaalinimo xataa ay wax igu qaban waayeen inay dhankaas garab igu siinayaan oo maleynayay laakiin meesan dhicin markii shantaas qofood laga reebo inta kale Malaysia qof ka hadlay ama xataa ila soo xiriiray dad yar oo caafimaadkayga weydiiyay qaar waxaa jira xataa ilaa yaalaan oo aan isku meel joogno oo xataa diris aan nahay diris xaqeed aan nahay oo aan weli xataa idin caafimaadkaaga ka waran sidee wax ku soo gaareen Malaysia dhacdadan igu dhacdayna waxa waaye qof aanan ogeyn ma lahan. waa tahay dib ma lahan maalinta qiyaamo ayaad heli doontaa xaqaaga sidoo kale ninkaas hadda kugula kacay arintaas foosha xunne sidaas looga hari maayo sharcigana waa la tiigsan doonaa haddii ay qabiil ugu hiliyeen gabar yar oo maskiina oo joogta qurbo oo 16 jira haddiiba ay qabiil ugu hiliyeen dadka reer Malaysia waliba community-ga kulley ayaga daciifnimadooda muujiyay youtuberada ka aamusayne waxa waaye taariikhda qori doonta dhammaan dadka idaawanayane way u jeedaan waana dhageysanayaan waraysigaaga marka waxaan ku leeyahay niyada qeyr u sheeg anaga garbahaaga ah aniga walaashay baa tahay wiil walbo Soomaaliyeedna walaashiis baa tahay marka hadda waa caafimaad qabtaa sharafkaagina waa ku dhoorsan yahay kaliya dhaawac ku soo gaaray waa midida aad gacanta isaga qabato Soomaa waa midida gacanta iskaga qabtay oo si xoog يعني دابع حوجي سوغار لكن الحمد لله مر والبو waxaan ku faraxsanahay maadaama wixii la rabay Ilaahay iga badbaadiyay daawacaasna yani waxa uu arkaa cidii iga jabto kale. I know.
الحمد لله. waa gartay askarta booliska mala xiriir booliska waa la xiriiray oo anigoo cisbitaalka joogo markay dhacdada dhacday horta ani waa miir daboolnay markaa soo kacay waxaa la yidhahay Tina iyo Munir iyo Xuseen baa waxay dhaheen maxaa lagu qabtaa maxaa jeceshahay anigoo cisbitaalkii joogo oo nolol iyo geeri u dhaxeeyo oo dhiig u baahan oo weli aanan nolosheeda aanaba la ogeyn bee dadkii waxay u kala baxeen qabiil iyo waxaas Soomaalidii u go'een kamana xumiyo garaad xumadoodii baa tusay qof oo gabar ah oo maanta dhibaataysan oo cisbitaal jiifto haddii ayadoo nolol iyo geeri u dhaxeysa qabiil inay u kala baxaan ay garteen markaas baan waxaa go'aansaday wax walba oo dhaco aan dhinta haddaan rabo laakiin inaan report booliska qoro oo aanan cafinaynin report booliskii waa ka qoray oo waa gudbiyey meel walbo iyo sharciga wax walba waa soo maray laakiin ilaa weli waxaa qarinaya dad baa qarinayo guryahooda ku heesto booliska cadaaladda ka qarinayo oo dadka xaqooda inay dugsiyaan rabo baa guryahooda ku heesta laakiin dhib ma lahan laakiin aniga intii karaankeyga wax walba kartideeda waa sameeyay boolis hadee aan leed hadee wax walba aan leed hadii aan sawiradiisa iyo dokumentigiisa aan gudbiyo wax walba dadaal aan sameeyay sawiradiisa waa la helayaa Soomaa ha halkan YouTube-kayga ayaan ku soo bandhigayaa sawiradiisa magaciisa saddexna ii sheeg magaciisa saddexna waa Cabdullaahi Xuseen Axmed Cabdullaahi Xuseen Axmed jooga dalka Malaysia sawirkiisu meesha saaran yahay waa ninka isku dayay in uu kufsado ama sharafkeeda ku ciyaaro gabadhaas yarta ah ee YouTuberka ah ee 16 jirka ah waa nin aan arxan lahayn damiirna aan lahayn qurbo ayay joogtaa walaalkeed lama joogo hooyadeed lama joogto aabaheed lama joogo adeerkeed lama joogo wuxuu damcay in uu si qasab ah gabadhaas ugu tago hase ahaatee ilaahaygi koonkan sameeyay ayadana abuuray annagana na abuuray ayaa ka badbaadiyay xumaanta iyo ceebta uu la rabay gabadhaasna ilaahay baa ka qabta hase ahaatee sharciga ay la tiigsan doontaa anigana garab ayaan ku sii doonaa iyo inta wanaaga jecel xaq daradana nacab waan garab istaagi doonaa waan ku garab istaagi doonaa walaashay waxaan sidoo kale ugu baaqayaa waa mahadsantahay abayo waxaan sidoo kale ugu baaqayaa walaalkay waa mahadsantahay sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo oo aan ilaabi karin daban aan only my brother Diiban Aadan Cali Caato oo mar walba cadaaladda jeclaa oo dadka reer Malaysia badanaa intii hadda ii taagan 10 qofood Malaysia 10 qofood kuma nool laakiin 10 qofood oo ii taagan ii istaajiyay asigoo safar ku jiro diyaarad saaran mar walba ila xiriirayay asigana aad iyo aad u mahadsan yahay sidoo kale ayub adina aad iyo aad u mahadsantahay aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa abayo waxba kuuma qaban aniga waxba kuuma qaban waxaan jeclaa lahaa inaan Malaysia joogo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan been ku sheegin inta idaawaneysana waa maqlaysaan ninkaas haddaan aniga Malaysia joogi lahay xabsiyaan u gali lahay xabsiyaan u gal noloshan dhaafiraay maxaa yeelay aniga gabdho waa ila dhasheen war 16 jir waaba saqiire maxaa hadduu xataa idab dara sameeyahay ma adduunkanaga laga waayo abayo waa ku maasan tahay waana dadaali doonaa waana sameey doonaa wax walba ninkaas aan kaaga gudi karno insha Allah abo waa maasan tahay adiga asxaabtaada waan salaamaya haya bay guuleyso waa tahay waad u jeedaan waadna maqasheen gabadhaas masaakiinta ah ninka isku dayay inuu kufsadana wuxuu joogaa Malaysia qurbihii ay Soomaalida isku xumeynaysaa gabdhihii jooga dalka gabdhow is ilaalsha gabdhihii dalka joogay waa la kufsanayaa xataa qurbihii la rabaa in lagu daro kufsi qof walba Malaysia jooga ama YouTuber arintan waa inaad u istaagtaan ninkaas wuxuushka ah ee bilaa damiirka ah waa in aad meel uga soo hartaan waa Ayub Carlos oo idin meel walba dunida aad ka joogtaan guuleysta haddii ay tahay markii kugu horeeyay aad soo booqato barteeda YouTube-ka subscribe saaro si aad ila socoto mar walba haddaad hore ila joogtana waa ku mahadsantahay muuqaalka like gareey siina share gareey si gabadhaas ayaaniita ay cadaalad u soo jaaw